ku hadlaysaa waxay yiraahdeen 80 ka mas'alo adigu aad leedahay dhawaan baa la wada ogaaday ama goortan baa la xaqiijiyay ama aynkan baa la xaqiijiyay intaba waxay ku qoran tahay nusuus iska caadi iyo xadiiskii nabiga iyo aayaadka quraaniga bay ku taala masaladii markii loo sharxay ee uu arkay nusuusta baliyiri tusay oo nusuustii arkay ayuu wuxuu jeediyay saddex muhaadaro ku saabsan human embryology iyo quraanka isaga jeedinaya markaasaan Zandani waxaan ku yiri maadaama buugaagu yahay reference buugii dunida ay waxa kanu isticmaalaysay markaad qaybta taariikhda ka waramayso ee muqaddamada buugaaga waxaad qortay cilmu lajna waqtiga hore inaan waxba badan laga garanaynin ilaa iyo markii la helay mooyaane electronic microscope kan electronic ee weyn markii la helay mooyaane markii hore inaan waxba laga ogeyn baad qortay oo medieval period kii ahdiyadii madooba inay tahay de taariikhdaasina sax ma aha anaga ku sheegnay wax laga ogaayo mid wax ka bedeshay soo qorbo ilaana ku qorayay waan soo siyaaqay buu yiri taariikhda hore in wax laga ogaayo sida wax loo sheegay inaan ahayn wax badan laga ogaa intii baan soo qoray waan u keenay buu yiri dabeetana page buu ku daray buu yiri kitaabkiisa uu kaga waramayo taariikhda caynka markii dabaarnay waxaan ku yiri buu yiri ma suurtagal tahay in طبعات كدبه بوغاغا كان chapter kasto aad ka hadashay quraan iyo xadiisku waxay ka sheegeen inaad ku darto soo qarabo yiri Zandani baa wuxuu leeyahay aniga iyo Sheekh Ibn Baz iyo qoladaas ay isugu tagay waa qoray dabeetana waa la soo qaaday wuxuu ku daabacay kitaabkiisi Soomaaliya markii 88 kii la qaxayay uu iga lumay buugaas oo tabacadii oo ku taalo nusuus walba oo chapter kasto kamida buugu marka uu qoran yahay ayaa hoostiisa waxa ku qoran aayaadkii ahadiistii ku soo aroray iyo sida loo define garanayo ama sida loo sharxayo 14 nin oo culimada waaweyn oo kala takhasusaad ay la kulmeen Keith Morcas uu kamid yahay Kroner meel la oran jiray odagii geologiga Jarmalka ahaa uu kamid yahay kii cilmi al-bahaarka Mareykanka ahaa niman kala gadisan wuxuu ka duubay markii dambe musalsal TV oo la yiraahdo innahu al-haq baad heli kartaa isagoo kitaabana waxa soo saartay hay'a al-i'jaz al-ilmi في القرآن والسنة رابط العالم الإسلامي سجال بوك بيلين سجال بوك وكور رمية مسائل كاسي الإعجاز العلمي في القرآن وبوك استاي واحد قارك كور رمية يعني قضايات كان مركي أفريقيا طبعا كان مركو ضد الله صمين يا شيخ الزنداني يا علماء الله صعطة قاروا يا شهاتين مارشال جونسون اللي يرادون مريكاني waxaan markaan u yeedhnay ayaan su'aal weydiinay buu markuu ka jawaabay ayaan nidhi waxaan quraanka ka warramay intuu istaagay buu yiri nonsense isagoo la istaagay buu yiri markaasaan nidhi buu fariiso waa buu fariisan waayay buu carooday haddii anaga istaagayna baan ku nidhi buu yiri waan isla taagnay anana taagnidan kugu akhriyayna waxaan nonsense iska leedahay baan ku nidhi buu yiri dabeetana waan u sharaxnaa akhrinay buu yiri markaas oo aamusa Marshall Johnson kan intaan la hadlin buu yiri Keith Morban waxaan ku nidhi buu yiri mas'aladan isay kula tahay wuxuu waxay ila tahay culimada sayniska buu yiri qaarna waa ahraar oo fikradooda hadlaan qaarna wax kale ka baqaaniyo wax kale xeerinayaan dadka ahraarta ah oo dhan waa aqbali doonaa buu nagu yiri mas'aladiina tan markaasaan ku nidhi buu yiri iyada ahraarta u maraynaysa mas'alada taraaqbaan uu sharxi karnaa u taga buu yiri Marshall Johnson waa Johnson kan ka cayeelay nonsense Johnson kama kan uu sharaxnay buu yiri ka waranay qadiyada tan iyo quraanka iyo xadiisku sidoo uu tilmaamay ayuu yiri markii dambe arintan ay sheegaysaan maxay kula taybaan ku nidhi waa saddex midun buu yiri haye saddexda midku xagaad ku haysaa wuxuu yiri Maxamed inuu mijhar haystay waxaan wax lagu eego microscope inuu agtiisa yaalay waxaan ku nidhi xadaaradu waa wada socota waqtigaasi carabtu waxay ahayd dad aan waxba haysanin quraankan laftiisa markay qorayeen wax kale ay ku qoraan way waayeen lafa iyo caleema iyo harag dushii baa lagu qortay buu yiri
ninkan quraankiisii ugu sareeyay waa haystay ba harag dushi ku qortay miyaa microscope haystay baan ku nidhi wiil ilaanu maadadii dhameeyay la ilaalinayay ba wixii adawaadkii lagu ilaaliyay lagu qoray waxay noqotay baan nidhi wiil harag iyo dhagax iyo lafiyo wax la nooca dushi ba lagu qoray miyaa suurtagal mid kale baan ku nidhi wiil technology ugu wada socda umada telescope samayn karta ama microscope samaysan karta fiicani xagan kalena de technology-da gaadhina waa samayn karta waxna waa samayn karta waxan kale waa samayn karta technology waa wada socda suurtagal ma habaan ku nidhitaa wuxuu sheegay baan filayaa kale dadkii ka horeeyay caynka adamiyad ku haysabaan ku nidhi taariikhdii hore iyo wax sheegaya nooca kan iyana lama hayo ka saddexaad aad sheegaysaa waa maxayo ka saddexaad waxa weeyaan buu yidhi inuu waxaan sabada uga yimi inuu waxyi yahay si kale aanu caddeeyo ma garan karo inuu waxyi yahay oo nebi loo waxyoodo u yahay Keith Moore markuu masalada tan ka warramayay oo muxaadaraadka jaamacadka galay TV-ga Canada ka galay markii uu soo daayay wariyihii wuxuu ku yidhi waana nin biya kristina ku soo koro masiixiya kii wariyaha oo rabay inuu malaada kaad ka gubo wuxuu ku celceliyay oo imka ma waxaad rumaysatay Maxamed inuu nabi yahay ayaa dhowr goor Keith Moore lagu celceliyay Keith Moore markii dambe wuxuu ku yidhi nabigu ma aha wixii Maxamed ku soo dagay wixii Ciise ku soo dagay inay yiraahdo meel qoray ka wada yimaadeen inay yiraahdo meel qoray ka wada yimaadeen wax yaani la qaadan kari waayo weynigu ma aha buu tilmaamay waxaan uga jeednaa مسائل كان tilmaamayno والاعجاز العلمي في القران markaynu leenahay waxa laga yaabaa i'jaaz ilmigi ama i'jaazkii hore culimadu inta badan ka warrami jirtay mas'ala bayaaniya lugawiya buha kana maanta waxa laga yaabaa carabta lafteedu bay raanay garanaynin yani carabta lafteeda luqadii ka luntay ajamta iyada daada inay gabay carbeed inuu quraanku ka sareeyo ama adab carbeed inuu ka sareeyo inay gartaan daaye carabta lafteedii buu dib ku yahay inay kala sooci karaan waayo waxa lumay dawqi adabiga aha waxa lumay dhadhankii adabka iyo luqada la yaqaanay quraankana waxaynu nidhi waxa loogu talagalay basharka dhamaantii maadaama basharka dhamaantii loogu talagalay waa inay jiraan basharkii si uu mucjisada tan uu la kulmi karo ama uu u fahmi karo walidalik إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكو ليه قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به كورم با إلهي إليه قل دي ننقال هدو قرآنكو إلهي حقي سكيمي إذنها كقالوا دين من أضل ممن هو في شقاق بعيد يا كباد إني مبضا ننكا يعني حق كدن بشي ميل فك سغن إلهي آيات كحكتا وحلي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد إلهي آيات كحكتا وحلي سنريهم آياتنا آيات كيغا وحن كتصدون نبا إلهي سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أنفسهم في الآفاق هوريزانسك آيات كيغا وحن كتصيبا إلهي سبحانه وتعالى هريرها عرق إيا نلك إيا آفاق أيان كتصيدونا إيا وفي أنفسهم با إلهي سبحانه وتعالى إيا نفتو أيان كتصيدونا حتى يتبين لهم إلهي إنت يقع عضاني سبا إلهي أنه الحق إنه القرآن كدب يهي أنت أي كعدانيسو وكتسينا با إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحلي سنريهم وتصينا مسائل كان علمي كان كور رميا واحد شرا وحي علماء كلا صاران ويدادنا التفسير العلمي هي وحي كتل المامان الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التفسير العلمي وإشارات كقرآن كي وحيابه تلمام يا بعض النظريات العلمية اللي فسره تاسي خطأ أنا وين غكرتها صوابنا وين غكرتها لكن مسألة أنا كور رمينا ما هطها مسألة وحويان ووح تحت التجربة قال ووح مشاهدة قال ووح أركتين نغضي مثلا المها هي عراشة سيدو وقرة